daawadayaal kulan wacan oo wanaagsan meel kasta oo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka ugu dambeeyay dirida dacladeeda oo maalin walba aad ka daawataan xogwaran media marka laga reebo maalinimada Jimcada waa 28 bisha 6 Juun sanada 2018 qodobada ku soo qaadan doona waxaa ka mid noqonaya 17 gobol oo ka tirsan wadankaasi Mareykanka oo dacwadeed ka gudbiyay madaxweynaha wadankaasi Mareykanka iyo sidoo kale xukuumaddiisa qodobada kale oo aan ku soo qaadan doona waxaa ka mid noqda daawadayaal baarlamaanka wadankaasi Netherlands oo ansixiyay qaraar looga soo horjeedo nidaamka ay xirtaan gabdhaha muslimiinta daawadayaal qodobada kale aan ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah madaxweynaha wadankaasi Mareykanka Donald Trump oo u hambaliyay madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan kadib markii ay qadka telefoonka ku wada hadleen daawadayaal qodobada kale aan ku soo qaadan doona waxaa ka mid noqonaya hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan carruurta oo xulafada Sacuudiga oo horkacayo ku eedeeyay in ay laayeen carruur aad u fara badan oo u dhalatay wadanka reer Yemen qodobadaas iyo qodobo kale ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa daawadayaal ku soo dhawaada واتاي داوديال halkaan kala socotaan waa xogwaran media barnaamijka dhacdooyinka ugu dambeeyay dirida dacladeeda ayaa la socotaan qaybihii ugu horeeyay ayaanu ku jirnaa hadii markaan aynu ugu ku bilaabo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan carruurta ama waxa lagu yeero dhibaataynta carruurta ayaa xulafada markaas Sacuudiga horkacaya waxa ay ku eedeysay in ay dhibaateeyeen carruur fara badan oo markaas ka soo jeeda dalka reer Yemen warqaraad ka soo baxay hay'adda la dagaalanka waxa loogu yeero ama ka hortagista dhibaataynta carruurta ayaa waxa lagu sheegay in markaasi ay mas'uul ka yihiin dalalka markaasi horkacaya dagaalka oo ugu horeeyaan xulafada Sacuudi Carabiya in ayagu mas'uul ay ka yihiin carruur badan oo lixaad kuwaas oo halkaasi markaasi lagu dhibaateeyay qoraalkeeda ayaa waxay ku sheegtay in carruurta ilaa haatan ku dhimatay ama ku dhaawactay tiradoodu markaasi ay gaarayaan 1316 carruur ah warbixinta ayaa sidoo kale waxa lagu xusay in 398 wiilal yar yar ah iyo sidoo kale 154 yar yar ah ay kamid yihiin dadka markaasi ku dhintay ama ku dhaawacmay ana markaasi loogu baaqay dawladaha Saudi Arabia xulufadiisa oo horkacayo in markaasi ay wax ka qabtaan waxaan loogu yeero weerarkan xariis darrada markaasi ka socda halkaasi sidoo kale kooxda xuutiyiinta ayaa hay'addu waxa ay markaasi ku eedeysay in carruur yar ay askareeyeen kuwaas oo ayagu markaasi u adeegsadaba ay dhaheen ama bageeyaba furimaha dagaalka xuutiyiinta ayaa la sheegay in carruur gaaraya 240 ay markaasi ayagu dagaalada ay galiyeen oo markaasi halkaasi ku dhintay kuna dhaawacmay kooxda kale ayaguna lagu magacaabo Al-Qaacida oo halkaasi ay ka dagaalantay ayaa la sheegay markaasi kooxda kale oo markaas lagu magacaabo Al-Qaacida ayaa la sheegay in ayaguna carruur fara badan ay askareeyeen ana la sheegay ilaa haatan sanadkii la soo dhaafay carruurta ay dhibaateeyeen ama dhibaatada ka soo gaartay dagaalkaas ama ku dhintay kuwa dhaawacmayba markaas ay gaarayaan 1316 carruur ah hay'adda ayaa markaas waxa ay ugu baaqday xogayaha guud ee qaramada midoobay in markaas dalalkan ay la xisaabtamaan dhibaateynta ay u geysteen dadka markaasi ama ay dhibaateynta u geysteen carruurta markaasi ama la dilay ama la askareeyay ama kuwa dhaawacaba dalka Yemen ayaa waxa halakiyay dagaal ba'an kadib markii kooxda xuutiyiinta ay weerar xooggan ku qaadeen magaalada Sanaa ee caasimadda wadankaasi kadibna ay ka ceyriyeen dawladii sharciga ah ee caalamka aqoonsanaa oo madaxweynaha ka ahaa Cabdurrabb Mansuur Hadi واتاي داوديال كان kala socotaan waa xogwaran media barnaamijka dhacdooyinka ugu dambeeyay dunida dacladeeda ayaa la socotaan qodobo dhowr ayaa noo soo hadii si markaan aanu eegno wadankaasi Netherlands baarlamaanka wadankaasi Netherlands ayaa markii ugu horeeyay waxa ay isku raaceen in markaasi la joojiyo ama markaasi laga soo horjeesto nidaamka ay qaataan dumarka wadankaasi Netherlands dumarka wadankaasi Netherlands ayaa la sheegay ilaa haatan wixii ka dambeeya in aysan markaasi xiran karin ama aysan ku xiran karin goobaha markaasi dadweynaha sida waxa la yiri iskuulada isbitaalada goobaha dadweynaha kuwa dawladda iyo goobaha kale oo laga dukaamaysto baarlamaanka aqalka sare ee wadankaasi Netherlands ayaa sharcigan ansixiyay waxaana la sheegay inuu ka soo shaqeeyay sharcigan markaasi ka dhanaan nidaamka ninka sida weyn markaasi ay u martay islaam nacaybku markaasi siyaasiga lagu magacaabo Geert Wilders oo isagu markaasi 10 sano markaasi gadaal ka riixay sharcigan markaasi waxa ansixiyay golaha aqalka hoose ee wadankaasi Netherlands ayadoo markaasi la soo dedejiyay sharcigan waxaana sharcigan lagu sheegay in loo adeegsan doono amniga wadankaasi Netherlands waxaana ay sheegeen baarlamaanka wadankaasi Netherlands in aan loo adeegsan doono arrintan islaam
nacay hase yeeshee loo adeegsan doono in aan la isku soo dhuuman. sharcigan oo muddo dheer ay kasoo shaqaynayeen baarlamaanka waddankaasi Netherlands oo maanta ay saxiixeen ayaa waxaa markaasi horey u ansixiyay dalal dhowr oo reer Yurub ah, waxaana dalaladaasi ka mid ah Belgium-ka, Faransa, Denmark, Spain iyo dalal kale aad u fara badan, kuwaas oo markaasi ku andacoonaya in markaasi ay ku ilaaliyaan dadka iyo dalkooda. waa tahay daawadalka weli naga socota waxaa goran media barnaamijka dhacdooyinka ugu dambeeyay dunida dacladeeda ayaad la socotaan. madaxweynaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo sidoo kale madaxweynaha waddankaasi Mareykanka Mr. Donald Trump ayaa waxa ay ku wada hadleen qadka. madaxweynaha waddankaasi Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay in uu telefoon u soo diray madaxweynaha waddankaasi Turkiga Rajab Tayyip Erdogan, waxaana la sheegay kadib doorashadiisii inuu markaasi madaxweynaha waddankaasi Mareykanka Donald Trump inuu ugu hambaliyay markaasi doorashada markaasi uu ku soo baxay madaxweynaha waddankaasi Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. hambalyeyn kadib labada madaxweyne oo markaasi qadka telefoonka ku wada hadlay ayaa markaasi waxa ay ka wada hadleen qadiyadihii ugu dambeeyay oo ay ka mid tahay magaalada sida weyn ay u wada ilaaliyaan labada dal. waqooyiga waddankaasi Syria warqalaha oo ka soo baxay xafiiska markaasi madaxweynaha waddankaasi Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa lagu sheegay in labada madaxweyne oo saacada markaasi ku wada hadlayay qadka telefoonka ayaa markaasi isku afkartay in la xoojiyo markaasi la wada xaajoodid u dhaxeeya labada dal oo markaasi ku wada jira gaashaanburta NATO. qoraalka ay ka soo baxay xafiiska madaxweynaha waddankaasi Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in 11 bishan ama 12 shir madaxeedka Granito ee ka furmaya magaalada Brussels ee caasimadda waddankaas Belgium-ka labada madaxweyne ku yeelan doonaan shir duceed kaas oo ay labada madaxweyne uga wada hadlayaan qadiyadda iyo sidoo kale wada shaqaynta labada dal. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in kulanka la xaqiijiyay horena qoondooyinkooda loogu daray labada madaxweyne kulankooda. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyadu markaasi waxa ay sheegtay in kulanka la xaqiijiyay horena loogu daray qoondooyinkooda shirka labada madaxweyne iyagu markaasi ku shiri doona markii ay tagaan magaalada Brussels ee caasimadda waddankaas Belgium. daawadayaalka nagala socotaan weli waxa qoran media barnaamijka dhacdooyinkii ugu dambeeyay dunida dacaladeeda ayaad la socotaan. ugu dambeyntiisii haddii aan eego 17 gobol oo ka tirsan gobolada federaalka ee waddankaasi Mareykanka ayaa maxkamad geynaya galdacwadeed markaasi ka dhan ah madaxweynaha waddankaasi Mareykanka iyo sidoo kale xukuumaddiisa. 17 gobol ayaa durba saxiixay waxa loo yaqaano markaasi ka soo horjeeda dowladda waddankaasi laguna cambaareynayo kala irdhaynta ama kala geynta caruuraha iyo sidoo kale waalidkood ama waxaa la yiri lagu kala xindaabay xuduudda dalkaasi markaasi uu la wadaago waddanka Mexico gaar ahaan gobolka Texas. warkan qoraalka ay saxiixeen goboladani ayaa waxaa horboodaya ninka markaasi xeeraryaha u qaabilsan dhinaca sharci dejin oo ah xisbiga dimuqraadiga ee waddankaas oo isagu markaasi doonaya in lagu ciqaabo xisbiga oo hogaamiyo Donald Trump iyo sidoo kale xukuumaddiisa. waxa ay ugu yeereen foolxumo iyo cambaareyn oo ay markaasi ku hayaan Mareykanka. Conor Gargow ayaa horkacay arrintan waxaana markaasi dibba ku raacay gobollo badan oo iyagu markaasi federaal ah kuwaas oo ay sheegeen in maamul goboleedu arrintan ay ka dhidhiyeen in sawirka Mareykanka caalamka la xumeeyo kadib markii la arkay 2300 oo caruur ah oo waalidkood la kala irdheeyay ama la kala geeyay ayagoo qaarkoodna la geeyay meelo hooy ah. waxaana la sheegay in xilliga habeenkii markii la gaaray sas iyo cabsi aad u fara badan ilmihii ay qaadeen kadib markii askar ay kala jajoobeen ayaga iyo waalidkood. waxaana la sheegay in waalidkood la geliyay xabsi. daawadayaasha qiimaha leh nagala socotaan waa xogoran media barnaamijka dhacdooyinka ugu dambeeyay dunida dacalada ayaa intaa ku saafmeeraya. haddii aad ku cusub tahay channelka xogoran fadlan subscribe si ay ku soo gaaraan wararka iyo warbixinadeena dambe.